kulan ay isugu yimaadeen qaar ka mid ah suxufiyiinta ka howlgala magaalada Hargeysa ayaa waxay kaga hadleen xadhigii dhawaan lagula kacay qaar ka mid ah suxufiyiinta ka shaqeeya magaalada Hargeysa. Gabagabadii kulankan waxay si wada jir ah u soo saareen war-saxaafadeed ay arrintaasi ku cambaaraynayaan. Waxaana war-saxaafadeedkaasi akhriyay wariye Cabdirashiid Cabdiwahaab oo ku hadlayay afka warbaahinta madaxa bannaan ee Soomaaliland ayaa lagaga wada hadlay xariga suxufiyiinta tirada badan ee ku xidhan magaalada Hargeysa. Falanqayn dheer kadib waxa kulankaasi laga soo saaray qodobadan. 1. Suxufiyiinta Soomaaliland waxay si adag u cambaaraynayaan xarig wadareedka lagula kacay suxufiyiinta ka howlgala warbaahinta madaxa bannaan kuwaasi oo maalintii saddexaad si sharci darro ah ugu xidhan magaalada Hargeysa. 2. Suxufiyiinta Soomaaliland waxay walaac weyn ka muujinayaan xaaladda ay xilligan ku sugan yihiin suxufiyiinta xidhan oo qaarkood ay qabaan dhaawacyo kala duwan isla markaana aan wali la geyn goobo caafimaad ama aan helin daryeel caafimaad. 3. Suxufiyiinta Soomaaliland waxay ka walaacsan yihiin inay ogaadeen inay jiraan siyaasiyiin badan iyo shakhsiyaad caan ka ah oo u sacabatumaya xadhigga iyo hagardaamada suxufiyiinta kuwaasi oo ay saxaafaddu il gaar ah ay ku hayn doonto wixii hadda ka dambeeya. 4. kulankan waxaa la iskula qaatay in bahda warbaahintu ay shirar kala duwan oo ballaaran isugu yimaadaan kuwaasi oo ay kaga wada tashan doonaan tacadiyada iyo dhibaatooyinka lagula kacayo warbaahinta madaxa bannaan isla markaana laga soo saari doono baaqiyo iyo qodobo culus oo hiil u noqon doona madax bannaanida saxaafadda xorriyatul qowlka lagu damaanad qaaday dastuurka iyo shuruucda dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland. 5. haddii ay sii socdaan dhibaatooyinka lagu hayo saxaafaddu waxay warbaahinta Soomaaliland ka fiirsan doontaa wada shaqaynta xukuumadda xilligan talada dalka haysa. 6. saxaafadda Soomaaliland iyada ayaa cid walba uga tacab iyo jecel badan horumarinta qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo ilaalinta jiritaankiisa iyada oo ay horena door weyn uga soo qaadatay dib u dhiskii iyo madax bannaanidii dalkan Jamhuuriyadda Soomaaliland. Wabillahi tawfiiq. intaas ayuu ku dhan yahay kulankii iyo waliba qodobadii laga soo saaray kulanka ay warbaahintu isku yimaadeen. Assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.